بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومركل يا عشرة أونلاين كها كبه جري Global International College كويا لي قبل كسول حرنته مقالة الأسانود وحنا لقى سود بعد أرضي إن شاء الله ما أنت وحنا قادم تونا أهل جهده Introduction of Mathematics أما هردا حسابات وايو حرنا إن شاء الله بل إن نسكت ضينه بإن ندير استاجنو حويان عشرة هروح كجسوا هذا اللي تاريخ ذي وحيابي يسوى مرتي لكن إن شاء الله ما أنتم هربنا كلية إن أفرق قلبك الله كو وما حساب لابو مع حساب طبرتا صدح أرض أنت بدل حساب تمني عبيهين وأنت بدل أيوه فعل الجروان أما يقول عن حسابته أفر reason ka caawinay ama asbaabo ka caawinay inaad improvement ku sameeysid ama horumar ku sameeysid xisaabta sidaad u baran lahayd marka afarta qodob insha Allah aan isdul taagay hadii la yiraahdo qodobka koowaad wuxuu ahaa waa maxay xisaab what is mathematics waa maxay xisaabi why should study mathematics maxay tahay sababta xisaabta loo bartay maxay tahay reason is why most students fail mathematics maxay tahay asbaabaha inta badan ardaydu inay ku failure garoowaan ama ay ku dhacaan maadada xisaabta that means xooyaan ay xisaabta xooga ay weeran yihiin and reason is to improve or study mathematics perfectly xooyaan reasono ama asbaabo marka ka caawinaya inaad horumar ku sameysid in xisaabta si sax ah marka aad u baratid marka insha Allah qodobadaas ayaynu qaadan doonaa waana qodobo runtii aad u muhiim ah oo ardayga wax badan ka caawinaya waana qodobada inta badan aan ku duldhisi doono xisaabteena hadii Ilaahay yiraahdo waana mana badna waa afarta qodob marka afarta qodob ayaa inoo noqonaya marka measurable inoo noqonaya ama aynu ku duldhisi doonaa xisaabaadkeen oo dhan waxaan soo qaadan doonaa marka qodobkii koowaad oo ah waa maxay xisaab marka arday aan wada socono waxaan isdul taagi doonaa qodobkeena koowaad oo ahaa waa maxay xisaab mathematics is a science horta waa cilmi xisaabtu waa cilmi weeyaan that deals cilmigaas ku taxalluqa with logic shapes shaxmada ama qaababka quantities numberada and arrangement iyo markaas waxyaabaha cabiraadaha ama sida wax loo cabiro ama loo habeeyo which are used formula shapeskas numberada iyo cabiraadaha waxa loo isticmaalayaa formula ayaa loo isticmaalayaa ama xeerar baa loo isticmaalayaa and by applying ayadoo loo adeegsanayo symbols sumadaha and arithmetic operations iyo xisaabada marka loo adeegsanayo marka xisaabtu waa cilmi marka ku taxalluqa xawayaan shaybiska numberada iyo measurementiga kuwaas inta badan loo isticmaalo xeerarkaas oo loo adeegsado sumadaha iyo xisaabada marka intaas inta badan lagu qeexaa xisaab definition fara badan way leedahay ama qeexitaamo fara badan way leedahay waayo haduu cilmi yahay hal qeexitaan ma yeelan karo laakiin wuxuu yeelan karaa hal qeexitaan iyo ka badan baa marka uu yeelan karaa laakiin qeexitaanka aan sidii alle waxa weeyaan ugu fiican yahay ama waa ma garanaysaa wax badan buu soo koobanayaa ama wax badan baa laga dhaxelayaa definition-kan ayaa markaas ugu muhiimsan ama definition-kan baa ugu wacan baan oran karnaa marka waxa weeyaan xisaabta horta waa taas oo su'aasha koowaad jawaabteeda saas ay noqonaysaa way sii wadnayo mathematics is a building block for everything in our daily life wal dhabarta nolosheena ayay noqonaysaa xisaabta oo maalin kasta xisaabta waa inuu isticmaalaa because maxaa yeelay everything we do shay kasta oo aan qabanana use waxa loo isticmaalaa mathematical application ayaa markaa loo isticmaalaa like sida cell phones ama smartphone waxa loo naqaano art oo sawirradii ah money oo lacagtii ah sportigii ama magaras ciyaarihii ah measurement and other device waxyaabahaas dhan waa inuu isticmaalaa telefoonkeena waa inuu isticmaalaayo hawayaan markan qof waxaysid numberka aad waxaysid waa xisaab
soo saama marka calculator ka ku isticmaalaysid waa xisaab war saamata marka wax ku daawanaysid waqtiga aad ku daawanaysid waa maxay waa xisaab marka aad wax sawiraysid sawirkan aad sawiraysid qaabka uu sameysmayo waa xisaab oo shape-kan qaabka aad ka dhigaysid sawirka noocu yahay xisaab ayuu markaa noqonayaa and money de marka lacag xisaabinaysid ama dukaan lacag ka xisaabinaysid ya maxaad ku xisaabinaysaa de xisaabaad ku xisaabinaysaa soo ma way sporti ciyaarihi and markuu ciyaaryahanka ordayo inta kilomitir uu ordi karo waa xisaab ninkan kubadda ciyaaraya shabaq kubadda gelinaya cabirku ku dhisan yahay waa xisaab samaartid kubaddan macnaha ay ku ciyaarayaan qaabka u samaysan tahay waa circle waa xisaab samaartid kabahan ay ku soconayaan cabirka lagu cabiro waa maxay waa xisaab samaartid waa kaas measurementigi wax kasta oo aynu isticmaalina waa maxay waa measurement bay ku dhisan yihiin waxa weeyaan haddaad ka soo qaado hadir adiga kaliya naftaada marka saas u fiirisid dharka aad siistay waa maxay wuxuu ku dhisan yahay measurement iskama gashan karto ilaa aad size-kaaga aad marka meel ka soo iibsanaysid size-kaaga ayaa markaa la rabaa samaartid markaad miisaan koraysid samaartid waa measurement marka waxa weeyaan guri markaad dhisaysid measurement buu noqonayaa another device iyo qalabyo kale marka loo isticmaali karo baa jira oo fara badan oo aan lagu soo koobi karin intan sida kombiyuutaradii baabuurtii ama gaadiidkii waxyaabaha ay isticmaalayaan waa maxay waa xisaab marka ma soo koobi karno waxyaabaha nolosheena ku saabsan ku taxalluqo xisaab waxaan oran karnaa marka nolosheena waxa weeyaan laf dhabar ayay u tahay maadada xisaabta waxaan filayaa inaan isla qaadano qodobkaas soo saama way marka waa tan the more complex society the more complex mathematical application needs runtii waa word aad u cajiiba samaartid hawayaan bulsho kasta horumar sameysay waxay u baahan tahay horumar xisaabeed bay u baahan tahay waayo teknolojiyadda maanta adduunkan casriga maanta ee teknolojiyadda aad iyo aad inaga horumaray hawayaan waxay waxa ku gaareen waa maxay wax xisaab weeyaan marka inagu haddaynu Soomaali nahay haddaynu xisaabta meel iska saarno baas way naga adag tahay de waxaad ogaataa adduunka inuu ku dhaafayo marka waxa loo baahan yahay qof kasta inuu isku dayo inuu maadada xisaabta barto waayo guri kasta meel kasta waxa weeyaan aad joogtid waxa looga baahan yahay xisaab marka haddaad xisaabta aqoon daadmis waxa weeyaan noloshii oo dhan baa ka soo xidhmaysa bas la fahanay Soomaa way therefore say that the community that learn mathematics to develop bulshada marka waxa weeyaan barata maadada xisaabta to develop waxay hormarisaa saddex qodob waxa kamid ah saddex qodob social ahaan bay u dhistaa ama waxa la yiraahdo sociological ayay markaa u dhisaysaa oo bulshada waxa ka dhisaysaa behavior-keeda ama dabeecadaheeda ayay dhisaysaa dabeecadaada markaa waa ay dhisaysaa waxay kaloo dhisaysaa xirfadaadana way dhisaysaa inaad noqoto qof transferable skills wax la yiraahdo ku siinaysaa ya xirfad aad isku filaatid ayay ku siinaysaa xisaabta waxa la yiraahdo waxa ku siinaysaa markaa xirfad oo inta badan qofka xisaabta yaqaana de xirfad buu barta oo ku shaqaysan karo samaartid sidoo kale waxay ku siinaysaa wax la yiraahdo K oo ah knowledge ya marka cilmigiina waxa weeyaan way horumarinaysaa oo cilmigaaga ay horumarinaysaayoo waxa weeyaan qofka xisaabta yaqaanaayay de wuxuu helay furihii aqoonta ayuu helay samaartid marka taasna waa ay horumarinaysaa samaartid marka saddexdaas waxay soo galiyaan socialki marka saddexdaa waxyaaboodba waxa weeyaan way ka dhistaan samaartid oo waxa weeyaan socialka ay marka soo gudagelayaan waxay kaloo ka dhistaa wax la yiraahdo physically ayay marka u dhisaysaa oo waxay ka dhisaysaa macnaha economic dhaqaalihii wadankii ma garanaysaa marka loo fiiriyo hadda marka Soomaaliya la fiiriyo saa loo fiiriyo iyo marka wadamada caalamka la fiiriyo qaybo kamid ah de waxaad arkaysaa wadankii Soomaaliya aad buu burbursan yahay marka waa physically waxa burburiyay waxa weeyaan dhaqaalan jirin wadankii dhaqaalan jirin marka xisaabtii maxay horumarinaysaa waxa weeyaan bulshadii marka horumariso aqoontii ay horumariso dhaqaalihii baa ku xigaya dhaqaalihii hadda horumarina maxaa meesha imaanaya in wadankii dhismo dawladda ay isku filaato inaga aan isku filaano bulshadii markaas waxa weeyaan horumar markaas ay ku talaabsato marka xisaabta waxyaabahaas oo dhan runtii way horumarisaa waxaan filayaa maanta laga bilaabo arday kastaaba inuu hamigiisa geliyo inuu maalmaha kamid ah uu noqdo maxay xisaabiyahan qof markaas xisaabta wax ka yaqaan idimali waxa weeyaan anu xisaabiyahan baan ahay oo waxaan sheegayo dhan baan duuduubay laakiin waxaan ku siinayaa dariiqii waxa weeyaan wadadaas ama dariiqii
dad badan marka ay mareen ama dad badan xisaabiyahana ay mareen dariiqii ay mareen un baa ku tilmaamaya aniga laftarkay waxa laga yaabaa inaan xawayaan wali iska bilow ahay laakiin waxa isleeyahay bal alleele xawayaan wixii ardayda ku dhaantid ma garanaysaa wadadeeda ama helinkeeda marsi si ay u qaadaan waayo arday fara badan baa runtii ku dhibaataysan si u baran lahayn maadada xisaabta insha Allah maanta casharkeen inahaas baan ku deyn doonaa ku xijin doonaa 3 qodob 4 qodob bay ahaayeen hal qodob baan maanta ka jawaabnay 3 qodob baa inoo harsan arday inay la socotaan baa muhiim ah oo ah maxay xisaabta u barataa oo runtii qodob aad muhiim ah oo rabtaa in casharada kale aad ula socotaan labo maxay tahay sababta ardayda inta badan ugu faylar garoowaan xisaabta ama ay u neceb yihiin maxay tahay kalo ugu dambayna xawayaan guul baan insha Allah ku gaari doonaa waxyaabahaas oo dhan oo ah xawayaan sababaha ugu waaweyn aan ku baran karno maadada xisaabta ama inuu si sax ah maadada xisaabta aan ugu baran doono marka qodobadaasi waa inoo dambeeyaan insha Allah maanta casharkeena inahaas ayaynu ku ekaan doonaa anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Xasan Ustaad Sayid oo idin leh maalintu ama habeenku haydii wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله